shirkadda Vulcan oo ah shirkad maalgashi oo leeyahay milyaneerkii geeriyooday ee Paul Allen ayaa waxa ay suuqa soo dhigeen diyaaradda ugu weyn adduunka Strad Launcher. Diyaaraddan ayaa lagu iibinayaa 400 milyan oo dollarka Mareykanka ah. Waa sida dad shirkadda ka agdhow ay u sheegeen shabakadda warbaahinta CNN ee dalka Mareykanka laga leeyahay. Sawirka diyaaraddan waxa ku jira milkiyadeeda iyo sidoo kale milkiyadda fikradeeda iyo waliba qalab kale oo dheeraad ah oo la socda. Diyaaraddan ayaa tan ugu weyn adduunka. Masaafada u dhaxaysa labadeeda garab waxa lagu qiyaasaa inay u dhiganto ballaca garoon kubadda cagta lagu ciyaaro. Dhererka diyaaraddan labadeeda garab waxa isku jiraan 117 mitir waxaana saaran 6 matoor oo aad u xawaaro sareeya. Diyaaraddan ayaa markeedii koowaad waxay cagaha dhulka ka qaaday Abriil 8 sanadii 2019 kadib markii 8 sanadood oo horumarinteeda laga shaqeynayay. Diyaaraddan ayaa hawada ku jirtay 2 saacadood in ka badan inta aanay mar labaad dhulka dib ugu soo cagadhigan oo aanay si nabad ah ku soo degin. Safarkii diyaaraddan lagu tijaabinayay waxa uu ahaa mid ay ku kor duushay California gudaha dalka Mareykanka. Waxay ku duushay dusha sare ee saxaraha Mojave, sarreeynan 17,000 oo feet.